guushu micno ahaan waa inaad gaartid booska himiladaadu ay tahay inaad guulaysato waxa ay la micno tahay inaad heshay ku qanacsanaanta waxa aad soo qabatay. guushu waa himilo iyo hiigsi aad leedahay oo aad gaarto, mana aha mid ku timaada xagla laaban, sahal, fikir gaabni, hamiyari iyo samir yaraan toona. guusha waxaa go'aamiya hanka, hiigsiga iyo humaagyada mustaqbaleed ee qofku uu leeyahay. markaas waxay ka dhigan tahay nin waxa guul u ah ayaa mid kale u ah bilowga hayaanka guuleed ee uu hiigsanayo. guushu waa helidda dhammaan waxaad ka doonayso nolosha, ama safulinta qorshihii aad hore u dejisatay. isla mar ahaantana guushu waa adoo kaca aroortii adoo dareemaya farxad oo aan dareemaynin cidhiidhi iyo diiqad. guushu waa wax loo baahan yahay waqti kasta iyo meel walba si nolosha loogu wanaajiyo sideeda wanaagsan oo aan laga xumaanin wax kasta oo lumay. waxaana jirta odhanaysa qofkii tareenka raaca oo aanan aqoonin meesha uu aadayo ma imaan doono. koor guusha waxaa jira waxa ay tahay inaad garato oo ah waxa aad ku cabiraysid inaad guulaysato iyo in kale. aan kuu fasiro. ugu horeyn waxa mudnaan aan laga maarmin leh yoolkaaga, hadafkaaga, wadada aad rabto inaad raacdo, halka ay ku dhammaanayso inaad garanaysid oo ay kuu caddahay una arkaysid sida aad u arkaysid qoraxda ayaa muhiim ah. kolka aad aqoonsato yoolkaaga waxaa mudnaan kala leh inaad ku dhaqantid 7 da ee guusha. kuwani waxay kuu sahlayaan inaad gaartid halka aad u socotid ee aad garanaysid ee ah yoolkaaga. 7 da waa dabeecadaha ay ka siman yihiin dadka guusha gaadhay. Lambar 1. dadaal. tayada wanaagsani shil ma ahan, had iyo jeer waa natiijada dadaalka caqligu ku ladhan yahay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa dadaala waa gaadhaa. way adag tahay inaad goosato miraha geed aadan waraabin weligaa. ma jirayso cid inta ku qaada ku dhex geynaysa barwaaqada. tallaabada ugu horeysa iyo dabeecadda ugu wanaagsan ee uu leeyahay qofka guulaysta waa inaad leedahay dadaal. Lambar 2. dulqaad. ma jirto beer miro laga goosto iyadoo aan loo dulqaadan muddada iniinyaha yaryari ay ku noqonayaan miro waaweyn oo la cuni karo. inaad dulqaadatid oo aad sabir u yeelatid halka aad u socoto gaaristeeda waa taakada labaad iyo dabeecadda labaad ee ugu muhiimsan ee uu leeyahay qofka guldoonka ah iyo kuwa gaadhayba. Lambar 3. dabeecad wanaag. waxaa tahay hadba sida ay tahay dabeecadaadu. waa been ma guulaysto qof godob laga tirsanayo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa. tusaale yar dib u xasuuso qofkii ugu dabeecadda wanaagsanaa aadana la abuuray waxa uu ahaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam. dabeecadiisa wanaagsani waxa ay ku qasabtay odayaasha ugu waaweyn iyo dadkii ugu waaweynaa Quraysh la dagaalamaysay inay qaataan diinta Islaamka sida Umar bin Khattab iyo Khalid bin Walid Ilaahay ka raali noqday. marna dabeecadaadu yaanay ku noqon halka aad hiigsanayso caqabad. Lambar 4. dabacsanaan. inaad dabacsanaato ma ahan micnaheedu inaad tahay qof liita, balse waa inaad leedahay awood aad ugu dhimrinayso dadka kula nool ee garabkaaga u baahan. Lambar 5. daacadnimo. guusha oo aad gaartaa waa inaad u daacad fashay baahida naftaada iyo himiladaadu waxa ay tahay. adiga oo lugoynaya naftaada dabcan waa qiraal in aysan dhacaynin inaad guul gaadho. Lambar 6. deeqsinimo. deeqsinimada ayaa ah qaybaha ugu muhiimsan ee guusha. inaad tahay deeqsi kaliya ma ahan inaad bixisid hantidaada, balse waxa ayana qaybta ugu muhiimsan ah inaad ku deeqdid waqtigaaga. inaad ku bixisid qayb waqtigaaga ah guushaada ogow iyana waa deeqsinimo. Lambar 7. dad la dhaqan wanaagsan. ma dhacayso in ay far kaliya fool ay meerto. si la mid ah ma jiri karo qof socdaalay oo isagu aan cidna garab ka rabin gaadhay meel aad u fog. markasta ku dadaal inaad waqti siiso dadka aad la nooshahay si aad uga hesho iyana garab inta aad uga baahan tahay ee ku dhaweyn kara inaad gaartid yoolkaaga. inaad ku sifowdo dad la dhaqan wanaagsani ayaa waxa ay la micno tahay inaad leedahay mid ka mid ah dabeecadaha ugu muhiimsan ee ay leeyihiin dadka guulaysta. halka aad kala socoto waa channelka ogaalka Audiostorm. fadlan subscribe, share iyo like. mahadsanidin.